الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشر كيس الديتناد يا كتاب كأني حكم وفوائد من روايع الإمام ابن القيم رحمه الله. طيب، فضل الشريعة. هل كان الشيخ وحكو شيء معلومة عوان لو قد فضل إلى الشريعة الإسلامكو شريعة فضل إلى فالشريعة عدل الله بين عباده. شريعة وإلهي سبحانه وتعالى أدومهيسا waxa cadaalad lagu sameeyaa dhexdooda waa shareeco weeye. waraxmatuhu bayna khalqihi, addoommaha ilaahay makhluuqaadkiisa u abuuray raxmadda uu u soo dejiyo u dhex dhigay waa shareecada iyo diinta. shareeca marka loo leeyahay waa diinta oo dhammaystiran, kitaabkii alle iyo sunnadii rasuulka iyo mutafaricaadkii ka farcamay, intaasoo dhan baa shareeco laysku yidhaahdaa. wadilluhu fii ardihi, waa harka la harsanayo oo dhulka ilaahay waxaa weeye shareecada. wa xikmatuhu addaalatu calayhi, waa xikmada ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey tusinaysana rabbi subxaanahu watacaala waa shareecada weeyaan. macluumadaa sheekhu wuxuu ku sheegay ibnu qayim kitaabkiisii iclaamu lmowqiciina can rabbi alcaalamiin ayuu ku xusay raximahullah. haddaba shareecada islaamku mabnaaha wa asaasuha waxaa la yidhaahdaa meesha ay ku qotonto ama ay ku taagan tahay ama asaaskeeduba wa calaa masaalix alcibaad, waa addoommaha maslaxadooda filmacaashi walmacaad, yacni noloshooda iyo hadday tahay tii adduunyada iyo tii aakhara, intaba masaalixda addoommaha ayay shareecadu ku taagan tahay. wahiya cadlun kulluha waraxmatun kulluha wamasaalixun kulluha wa xikmatun kulluha, yacni shareecadu waa cadaalad, waa raxmad, waa maslaxo, waa xikmad. fa kullu mas'ala, haddaba mas'alo kasta oo kharajad ka baxday baa la yidhahda can alcadli wa can alraxmati wa can almaslaxati wa can alxikma, haddii aad aragta mas'alo ka dhex baxsan intaasoo dhan, cadaaladii iyo raxmaddii iyo maslaxadii ummaddan iyo xikmaddii ummaddan wax ka dhex baxay haddaad aragto, falaysad min shareeca, taasi shareecada waxba kama, yacni ma aha shareecadii saxda ahayd ma aha. wa in udkhilat fiiha bita'wiil, haddii la rababa ha lagu soo geliyo si ta'wiil ah. ta'wiil yacni waa si sax a ma aha, dad baa raba inay kusoo daraan oo yidhahdaan waa shareecadii, marka habadee rabaan qaabkaaba ha u soo gelin. shareecadu waa quratul cuyuun, waa indhuhu waxay ku qabowsadaan, waa iyada. wa xayaatu lquluub, waa qalbiga noloshiisa, waayo quratul cuyuun rasuulku sala allahu caleyhi wasalam yani wuxuu odhan jiray wajacalat asalaatu quratu cayni, saasoo kale kamaa qaala sala allahu caleyhi wasalam, yacni salaada waxaa laga dhigayba indhahayga qabowsigooda. waa ka odhan jiray bilaal, salaada noogu aqim arixnaa biha, yani u aadaan u aqimo aan ku raaxaysano, meesha lagu raaxaysto lagu degaayo waa iyadoo indhuhu ku qabowsadaan. saasoo kale waana xayaatu lqulub, waana qalbiga noloshiisa dhabta ah, waa shareecada wey, wuxuu ku noolaaday. waa ladatu larwaax, waa ruuxda macaansigeeda, waxay ku macaansato ruuxda iyo arwaaxda dadku waa shareecada. fa kullu khayrin, haddaba khayr oo dhan oo fil wujuud adduunka dhexdiisa ihi fiiha shareecadu ku jira. wa kullu naqsin fil wujuud, wax kasta oo nusqaana adduunkana fa biidaacati, waa shareecadii oo la dayacay ayuu ku jira arrinkaasina. ayib, macluumada kale sheekhu wuxuu yidhi saa'iq alacmaal, waxaa iyadana ciwaan looga dhigay acmaasha sideedaba way kala faadilan tahay. tafaadul alacmaal bitafaaduli maa fi lquluubi min xaqaa'iqi aliimaan. tafaadul acmaal, acmaashu waxay ku kala fadli badnaataa bitafaaduli maa fi lquluub, yacni siday u kala sarrayso quluubta waxa ku jiro min xaqaa'iqi aliimaan, iimaanka xaqaa'iqdiisa ah. wuxuu ku sheegay sheekhu macluumada kitaabkiisii alwaabilu sayibu min alkelimi ayib. haddaba maxaa laga wadaa acmaasha maxaa kala sarraysay? acmaasha waxaa kala sarraysaya dadka iyo iimaankooda. dadka iimaankoodu hal meel ma wada joogo. aliimaanu yaziidu wayanqus baa la yidhahda, madhab ahlusunnati waljamaaca waxay qabaan iimaanku wuu ziyaadaa wuuna nusqaamaa.
waxay leeyihin aliimaanu yaziidu bitaaca, wuxuu ku ziyaadaa taacada, wayanqusu bilmacaasi, macsiyadana wuu ku nusqaama. haddaba qofka kaa taaco badani wuu kaa iimaan weyn yahay. ayib, haddaba qofkaa kaa iimaan badan, camal aad wada qabateen, salaad baad hadda wada tukateen, ka soo qaad, adiga macsiyadii baa kaa badatay, kana waa iimaankiisii baa weyn, salaadii waad wada tukateen, isku ajir noqon maysaan. labadaa qof soonkii baad wada soonteen, isku ajir noqon maysaan. marka midi maanta dhan buu indhaha meerba meel la raacayay, been kama dhowrsanaynin, wixii xumaa oo dhan buu samey. kana waa af xidhmaayo siduu uga soomay maaragtay caloosha uga soomay, uu farjiga uga soomay, buu afkana uga soomay, uu cuntadii uga soomay, uu beentii uga soomay, isku dirkii uga soomay, wax walba uu ka soomay. marka labada qof hal camal iyagoo wada qabanaya, tafaadulu lacmaal bitafaaduli ma fi lquluubi min xaqaa'iq aliimaan. marka taasaa lagu kala fadli badnaanayaa. ayib, haddaba in alcamal alyasiir almuwaafiq limardaati illah, camalka yar oo waafaqsan allah raalli ahaanshihiisa iyo sunnadii rasuulkaba, axabu ila allahi min alcamali alkathiir, yaa looga jecelaya xagga eebe camalka badan. idaa khala can dalik, hadduu camalka badan uusan dee lahayn ikhlaaska iyo raalli ahaanshihii ilaahay uusan lahayn. allahna wuxuu leeyahay aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. waxaan alaxsanka culimadu waxay ku fasireen alakhlasu waalaswabu, waa midka ugu khaalisan oo khaalisan liwajhi wixii loo qabtay, sawaabkana wahuwa almuwaafiqu limardaati wa maxabati, waana ka waafaqsan alla raalli ahaanshihiisa iyo jacaylkiisa. ilaahay subxaanahu watacaala camalkeenna khaalisan liwajhihi allaha ka dhigo. jazaakum allah khayr, baaraka allah fiikum.